بالله التوفيق. سؤال kale waxa uu ku bilaabay qofkan assalaamu calaykum walaalaha waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Sweden su'aashaan rabo waxa ay tahay inaan weydiiyo sheekha salaada qudbada marar badan muxuu ahaa qofka isagoo shaqeynayo ama ba aysan suurtagal ahayn inuu shaqadii ka tago ama waqtigii shaqada aysan dhamaan ayaa waxa dhacday in salaada qudbada ay ka tagto marka diinta islaamku maxay ka qabtaa in qofkaas aanan awoodin ama fursad aan u helaynin inuu iska tukado salaada duhurka alxamdulillah dadku waa laba dad ay jumcada ku waajibtay iyo dadana ku waajibin dadka aan jumcada ku waajibin ama ha mashquulsanaada ama firaaqaha hayee jumca laguma laha dumar buu noqon karaa daayar buu noqon karaa ka yar daadii qaangaarhka musaafir iyo qof xanuunsan buu noqon karaa qof cudurdaar le masaajidka inuusan tegin cudurdaar u leh ama dadka kaadidii aan cishan karin wuxuu kaga ilaaliyana aan lahayn iyo xanuunada qaarkood buu noqon karaa qofka meesha uu joogo iyo masaafada jumcadu ay ka waajibaysayba aan joogin buu noqon karaa shuruudii jumcada kala buuxsamin qofka aan jumcada shuruudeedii buuxsamin ee lagu waajibinin dee isaga laguma balaha qofka ay jumcadu ku waajibtay asalku waa inuu tagaa fascaw ilaa dikrillaahi wadarul bayca hal jumco laga tegay dembi waaye hadday laba noqotana dembi sii weynaaday waaye saddex hadday noqotana dembi sii wey hadday iskuba sii xigtana qalbigiisa in la daboolu mudan yahay nabacaas waxaa ka sugan ninkii saddex jumco isku xiga ka taga fudaysi uu fudaysanayoon halmaan iyo wax ka waaweyn ka tagsii jirin tabaca allaahu calaa qalbi qalbigiisa ilaahay daboolaya maanaa waa mudan yahay in qalbigiisa la daboolo dembigu galayna weynankiisu waa dembi qalbiga lagu dabooli karo saa darteed qofku jumcada inuu tukado hadday waajib ku noqotay jumcada waa inuu tagaa tukadaa billahi tawfiiq